السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبيال كسو دواد ورئيس قارة وان كقاد الدونو معلنك كوحدة كبادة عاقتة راتسن وكوحدة كالنتا لباد كفديسا هوريالك الصومالي بريمير ليج ووجيجي سكوات او مركاسو وصو إلادي معلن عبدولي محمود عبد جون waxa uu kooxda raadsan u suura galiyay in markaas meel aan looga baran ay gaarto sidoo kale tan rajo ay ka yeelato tartanka xoogan ee horyaalka Somali Premier League waxa ka weydiin doonaa waxyaabo u suura galiyay sidoo kale to raadsan halka ay higsanaysa xil ciyaareedkan macallimu soo dhaw bal marka hore waxaad nooga warantaa safarkaaga kooxda raadsan sidoo ku soo bilowday bismillaahir rahmaanir rahiim aad ugu dhaw astaan markaan ka hadlo kooxda raadsan waxaan joogaa muddo 4 bilood ah waxaana markii ugu horeysay aan kulanay gudoomiyaha naadiga raadsan iyo nin aniga qaas ah oo saaxiibkay ah oo la taliyayga qaaska ah asaan ugu dhiirigeliyay in raadsan qabto raadsanna aniga markaan qabanayo ujeedan u tagay runtii raadsan maanta waxaad ka dareemi kartaa xasuustaa qoslayo markii aan imaanay raadsan heshiiskayga wuxuu ka dhacay xarunta astaan عاديات waraysideedu ugu dambeeyay waraysiga markaas ka hadlayna waxa dareemi kartay kooxdan in ay isbedel badan sameynayso horaan u ballan qaaday صح ilaahay inuu ii suurtageliyay ilaaha mahaddas kale maanta raadsan waxay joogtaa kooxaha ugu xoogga badan waddanka ka mid tahay raadsan aniga markii dhiibay sanadkii hore oo sanadkan hadda markii dhiibay wuxuu ugu jirto horyaalka kaalinta 8aad waxaad dareemi kartaa maanta meesha ay ku joogtaa waxaan ii suurtageliyay inaan maaragtay maamulka naadiga oo ayagana garab u siiyey ciyaartooyda kooxda badankood oo ciyaartooy qaar hore u joogay iyo kuwa degmooyinka aan ka keenay taasaana suurtagelisay iyo aqoonteyda oo aniga aan isbiirsanay taasaana ka dambeysay inay raadsan tagto kaalinta labaad waayahay raadsan xil ciyaareedkii ugu horeeyay aad qabanaysay waxa ay koox inta badan ciyaartooyda xitaa qayb kamid ah ka tageen oo ciyaartooy badan ay joogeen sidoo kuugu suura gasheen markaasi kooxda ciyaartooy badan aad keento sidoo kale xitaa keedka kooxda uu noqdo mid caamiran oo bedelo badan aad heli karto wallaahi hortaas aqoonteyda waaye aniga waxaan aad u fiirsadaa ciyaaraha degmooyinka kuwa biida macallimiinta markasta la socdo ciyaaraha muxuu ahaa waddanka ka dhaca hadday noqon lahayd xataa garoomada iska yaryar oo iska caadiga ah hadda ciyaartooy kale oo fiicana joogto oo lagu arki doono maaragtay wareegga labaad oo aan soo diyaarinayay oo ayagana maaragtay maxay ka mid ah ciyaartooy raadsan ka tirsan oo laakiin kooxda aan u diiwaan gashneen taasaan ii suurtagelisay in maaragtay raadsan aan ciyaartooydii joogi jirtay kooxda oo macalinka hore ugu wadi jiray gadaamo maaragtay qaarkood inta badanna qaar ka mid ah joogaan oo adiga ugu yaraan haddii la qiyaas ay yihiin 5 ama 6 laakiin inta ugu badan waxay u badan yihiin ciyaartooy degmooyinka iyo biida aan ka keenay taasaana maaragtay maxay ii suurtagelisay in maaragtay kooxda ciyaartooydii hore ay kooxda ka tagtay kuwan kale si aan u helay ciyaartooy kale oo amaaha u joogi jirtay kooxda oo iyagana aan ka fasaxnay kooxda waayahay hadda bal waxaad nooga warantaa tirada ciyaartooyda markii aad imaaday raadsan aad ku soo kordhisay ilaa intee gaarayaan 16 ciyaartooy ku soo kordhiyay waayahay waxaa badisay 6 ka mid ah kulamadii 9ka ahaa ee aad soo ciyaartay wajiga koowaad ee horyaalka Somali Premier League hal guul darana waad soo qaadatay inta badan kooxdaada waxaa gool soo dhalinaya ciyaartooyda ka ciyaaraan difaaca iyo kuwa qadka dhexe ka ciyaaraan kooxdaada waxaa laga dareemayay in weerarkeeda aad u daciif u ahaa ma laga yaabaa in hadda waqtiga horyaalku xiran yahay wajiga koowaadna uu soo idlaado wajiga labaadna aan la gaarin in aad samayso seexiyo dhanka weerarka ah oo kooxda ku soo kordhiso horta kooxdeeda weerarkeeda aad daciif uma ahan horta waxaa jirta waxyaabo experience ah ciyaartooyda hadda kooxda u dhiisho badankood afka hore ka dhiisho hal ciyaartooy jiro oo ay arag ah Jibriilna wuxuu ka mid yahay goolasha la dhiibo kooxda dhaliyo inta badan asaga dhiibo asana ugu way aragsan inta kalena waa ciyaartooy hadda timid oo degmooyinka tagistoodan aad u badan tahay waxayna khasaariyaan haddii aad fiiriso ciyaariye dhan oo ay dheelaysay raadsan gool aad u fara badan ay khasaariyaan taasna waxaa keenayso way arrinimada ciyaartooyda iyo waqtiga yar ay isla joogaan iyo habka ay kooxda u soo dhaqaaqday ay joogto meesha ay joogto horta kooxda falsafad gooniya ku dheeshaa oo kooxaha ka duwan waxaadna ka dareemi kartaa markay kooxda gool dhaliso kale habka ay kooxda u difaacato aad iyo aad kulanka kooxda laga badiyay ani waxaan saarnaa kor
naftirkeeda waxay kamid tahay waxyaabaha oo macalinka kooxda hadduu ka maqayaa inkastoo ciyaartooyda aysan markaas macalin tabin ay aad u dheeleen geemkaas oo ragoora xataa iska khasaariyaan runtii aniga Radson meesha aan ugu talagalay inay tagto meel ka fiican ay joogtaa hadda aad iyo aad waxaan se rajeynaa insha allah kulamada soo socdana wareegga labaad inaan wax badan bedeli doono cabdijoon inta aad wada kooxda horseed waxaa la arkay wejiga koowaad ee horyaalka in kooxdaada ay hogaamiso oo awood badan ay la soo baxdo laakiin wejiga labaad markii la gaaro in guuldarooyin ay ku dhacaan sidoo kale kulamada qaar bareejo ay gasho Radson miyay noqon doontaa sida horseed aad ku hayd والله horseed ma ahayn horseed waxaa ka dareemi kartaa hadda horyaalkii hore 18 kulan ay ku dhameysatay hadda Radson 20 ay joogtaa horseed kulamadii hadda ee horyaalka ay dheelaysay bareejooyinkeeda badan ma horseed hoos uma dhicin waxay ahayd kooxaha ugu xooga badan saddex kulan kamid ah ee hadda ka hor waxay gashay bareejo horena u sheegay oo kamid ahaa kulankii dekada Elman iyo Mohaamednimo saddexdaas kulan kamid ah hadday badi leedahay xataa way qaadi lahayd waxaasna wax ilaahay xaggiisa ka qornay horseed iyo Radson isku mid maahan Radson horseed waa koox xoog badan oo ciyaartooy tayo leh oo national teamka wadanka u joogay dhaqaale fiican haysato kooxda ku laakiin Radson ma aha kooxda horseed oo kale Radson waxaa joogay ciyaal yaryar mana ahan inay isbedeli doonaan ma u malaynayo waayo qofkan wuxuu raadinayaa dadka ciyaartooyda kala mid ah aadiyad ciyaartooyga markuu uu professional yahay oo waqti dhaqaale badan u qaato iyo ninka wax raadinayo oo rabo inuu soo saaro way kala duwan yihiin Radson ciyaartooydan hadda joogto waxa meesha keenay waxa waaye dadaal iyo juhdi badan iyo inay dadka isbaraan iyo falsafada macalinka oo asagana maartay kamid ah waxyaabaha oo kamid ah way ka duwan tahay falsafadii hore oo horseed aan ku waday tan Radson aadiyad tan Radson aduun waxay uga duwan tahay maadaama ciyaartooydan ay yihiin ciyaartooy yaryar khibrad badan ay leeyihiin aqoonta oo maartay macalinkan ay fulinayaan taasana keenayso laakiin ma aaminsanin Radson inay booska hadda ay joogto waxaan rajeynaa ciyaarta ugu dambeysana waa ka hadlay inay kooxda hadda ay tartamayaan absolutely maadaama horyaal hadda koow yahay waxay hadda u tartamaysaa awal booska ay shalay joogto inay kasoo dhaqaaqdo aadiyad hadda laakiin waxay joogtaa booska labaad waxaan aaminsanahay ciyaartooydeedana waa ka wada hadalnay taasna waxaan rajeynaa insha allah inay kooxda booska ay hadda joogto aysan ka kicin haddaysan kor u aadin aadiyad waayahay macalimu kooxda horseed waxay ahayd kooxihii kugu wanaagsanaa ee aad soo qabato ayay ka mid ahayd waxaa joogay ciyaartooyda aan iraahdaba ama aan kasoo qabto laacibiinta ugu khatarsan ee horyaalka Soomaaliya ka ciyaarto qayb kamid ah ama qaybtooda badan ayaa joogeen wayna ku suurtagali weysay in markaasi wax horyaala aad ku qaado adigoo haystay koox line up oo taama iyo soo kale koox aan ka liidan oo bedela oo u fadhiday kooxdaada marka tacticadii horseed wax ugu qaban weysay Radson ma ugu qaban kartaa in horyaalka ugu qaado walaa horta horyaal ilaahay xaggiisa ka qoran tahay maslayo ma ahan horyaalka waxaa arki kartaa ani hadda markii aan horseed baneynay waa ka hadlay waxaan uga hadlay wax qabadkayga waa ka soo hadlay sax waxaan uga hadlay waxaan dhahay waxaan u baneynaa si macalinkan uu jaanis u helo sax horseed guulaha ay gaartay 95% anaa u sababay sax horseed ma tartami jirin hadda way tartantaa koox xoog leh waa ciyaartooy tayo leh joogto sax aad u fiican waqti badan isla soo qaadanay maamulkeedana dad aad u fiican yahay khaasatan horyaalka oo nin maaragtay aad ugu jajaban ee horseed aadiyad marka ay noqoto Radson way ka duwan tahay horseed Radson koox wax raadinaysa waayo aadiyad horseedna levelkii loogu talagalay ee waxay joogtaa kooxaha wadanka ugu xoog badan ciyaartooy tayo leh haysataa absolutely Radsonna waxay ka duwan tahay waa koox wax raadinaysa ilmo hadda la keenay oo sanad aan isla joogin waayo waxay joogaan 4 bilood bishii sanada hadda u socoto waxaa ka dareemi kartaa kooxdaas in juhdi la soo geliyay aqoon fiican la soo gelshay tayadeedana ay aad u fiican tahay ciyaartooyda ay joogtana ciyaartooy da'yar ay tahay iyo kuwa way arag ah anaga waxaan ugu weerarsan maadaama aan Radson Jibriilna wuxuu ka mid yahay laf dhabarta oo kooxda ka mid yahay waxaa ka dareemi kartaa qaabka uu ciyaar hadda Jibriilkii soo shalay ahaan jiray maanta ma aha marka Radson dinoba waxaa ka dareemi kartaa wax badan inay isbedeli doonaan oo Radson shalay si ahayd ma aha maanta markay garoonka soo gasho waxaa ka dareemi kartaa xamaasadeeda ciyaarista kubadeeda iyo habka ay u dagaalamayaan waana koox disciplinekeeda aad u fiican yahay waayahay intii uu socdo wajiga koowaad ee horyaalka Soomaali Premier League kulan kugu adkaa aad ciyaartay kulan ku ahaa maxaase keenay in ama waji nuuc ayuu noqday adeegaas wallahi kulankii igu adkay aan dhilo waxay ahayd kooxda gaadiidka
macnaha aniga macallin ahaan ciyaartooyda iyaga gooniya u tahay taas صح laakiin aniga macallin ahaan markaan fiiriyo kooxda gaadiidka koox aada u fiican ciyaartooy weerar fiican oo ajnabi u dheelaan صح runtii waxaa ka dib sagaashanka maray maraysa xataa Janis waxaa ugu helay Nicola صح ciyaarka difaaceena aada isugu qarxiyay صح goolkaas kaas markuu waxaan dareemay in kooxdan ay tegi doonto meesha loogu Aad iyo talagalay aad. tiimkaas markaan badiyay صح waana wax weyn oo iga dhigan yahay gamekaas صح waayahay waxaa ka soo badisay dhammaan kooxihii aad soo maamushay sida Elman Horseed iyo Dekada maxay kaaga dhigan tahay Cabdijoon ahaan walaa horta wax weyn ay iga dhigan tahay Horseed iyo Elman iyo Dekada waa kooxaha wadanka ugu weyn dheelna maaha kooxda haddii laga badiyo waxa waaye naftirkeeda waxay ka mid tahay waxyaabaha oo raadsanna maanta horumarka ay samaysay waxaa u sababay saddexdaas game iyo geemka gaadiidka waa kooxaha ugu waaweyn wadanka qaab ahaan markii la fiiriyo xataa raadsan way ka dhisan yihiin aad iyo aad ciyaartooy ahaan noocaas taasaana keentay inay raadsan noqoto kooxda maanta kaalinta labaad ku jirto oo xoogna ay yeelato saddexdaas geemna wuxuu iga dhigan yahay maadaama kooxii aan soo leeli jiray ahay falsafadoodana si fiican u aqaano aniga naftir ahaanteed hamniyad gooniya ay leedahay waayahay kooxda labaad ee ugu hooseyso ee Dekada waxaa ka tegay ciyaaryahan weyn oo Cabdiciis Maxamed Catoosh wuxuu noqday mid suuqa qabsada kooxo badan ay doonayeen raadsan ma ka mid ahayd kooxihii aad ku raadinayay in laacibkaas weyn ay helaan maya raadsan uma baahna hadda ciyaartooy oo maaragtay weyn anaga ciyaartooy weyn waxaa haysanaa Jibriil oo ku filan kooxda ciyaartooyda hadda joogtana ciyaartooy yar yar oo aad u da'yar waaye Catooshna waxa waaye ciyaartooy aad u fiican oo ka mid ah macallin aan usoo noqday oo ciyaartooy aad u fiican waana jeclahay laakiin anaga raadsan ahaan markaan noqono hadda waxaan ku jirnaa xilli oo maxay ahayd aan wax raadinayno aad iyo aad markaan helno wax raadiska markuu noo ficnaado oo kooxda meesha loogu talagalay ay tagto markaas insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ciyaartooy magac la soo qaado waayahay isla su'aashaas ku laabanaya Catoosh waa ciyaaryahan xirfad wanaagsan dhan kastana kooxda ka anfacay haddii uu kugu soo biiro ma dhaqaale ahaan baa idin saamixi waaye inaad ka mid noqonaysaan kooxaha raadinaya ciyaaryahankaas mise tacticadaada ayuu ka mid ahayn maya labadaba ma ahan Catoosh waa ciyaartooy magac leh wuxuuna ku fiican yahay kooxaha waaweyn صح markii laga soo reebo Dekada uu ka soo tagay Elman iyo Horseed MCC waa kooxaha wadanka magaca ku leh raadsanna hadday magac raadinaysaa صح marka Catoosh kooxahaasuu ku fiican yahay anaga dhaqaale ahaanna ma ahan raadsan way bixin kartaa $400 ama $500 ama $600 hataa waxaa laga yaabaa inay kun bixin karto qofka markuu u baahan yahay ciyaaryahanka wuxuu rabo ka bixin karaa laakiin anaga ciyaartooyda yararee noo joogto kooxda ka mid aan maaragtay maxay dhaheen falsafad gooniya wadanay sanadkan aad iyo aad oo lagu talagalnay anaga hadda lagama yaaba xataa waxaa laga yaabaa inuu ciyaartooy aan u baahana xataa macquul barkeed kooxday joogaan ciyaartooy oo daayar aan kasoo shaqeynayo hadda ayagaan qabaa aniga ujeedadeeda ugu weyn ee hadda aan rabo inaan raadsan aan maaragtay wax badan waad dareemi kartaa hadda inaan wax badan ka bedelay aad iyo aad wareegga labaadna waxaan rajeynaa insha Allah tiyo kale inay dhacdo ciyaartooy kale oo yaryar oo la ka seenay inaan keeno weligiina waa keeni jira kooxaha mar kasta oo taga koox kasta oo taga ciyaartooy aan ku abuuri jiray haddana waan rajeynaa insha Allah ciyaartooy tayo leh inay soo baxdo macallin Cabdijoon shakhsiyadaadan usoo laabanayaa waxaa tahay macallin wanaagsan oo dhanka soo saarka ciyaartooyda aad ugu wanaagsan sidoo kalena fursado siiya ciyaartooyda yararka inta badan keedka dariska la noqda mararka qaar waxaa lagu eedeeyaa inaad tahay dilaaga ciyaartooyga sababtoo ah waxaa jira ciyaartooy aad ka taqlusto oo iyagoo form fiican ku jira ama performance fiican haysta in markaasi keed aad la daba kacdo ama qadka baa ka saarta ama kooxdaada ay ka mid noqon waayaan eedaas maxaad ka leedahay waa qoslay horta hore dadka dhan warkaas dhahan inta badan laakiin aniga ma ihi shakhsi ciyaartooyda la dagaalamo aniga waa laga yaabaa inaan shaqada ku adadkahay ninkana shaqadiisu inuu ku adadkaada muhiim waa ciyaartooyga hadduu tababar sameynayo oo maalin kasta tababarka joogo fiiri Jibriil wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda wadanka magaca ku leh haddaan ciyaartooy inaan ku tunto ama ciyaartooyda ganjibada aan ku tunto Jibriil aan ku tuma lahay Jibriil hal maalin tababar ma gooyo waa shakhsiga kaliya ee inta aan soo maray ciyaartooy oo way arag oo maaragtay maxay ahayd aniga macallin ahaan waxaa soo leeliyay kooxo badan Elman ciyaartooy way arag joogto Horseed
dekeda inkastoo dekeda aniga markaas ciyaartooy yaran oo ku bilaabo oo ciyaartooy way arag ugu jirin صح laakiin elman iyo horseed aan soo maray ciyaartooy waqtiga jibriil dheelay waxaa ka mid ah mayman iyo xasaasi iyo gruubkaas ka wada mid ah elmanna waxaa u jooga xaajo iyo gruubkaas ka mid ah ciyaartooy tababar imaanayo aniga weligay maaragtay ma laga yaabo inaa maaragtay maxay formansigiisa aan dhumiyo laakiin ciyaartooyga tababarka aan imaanayn tababarka sigseki aniga kow sharciyadeeda waxaa nin isbuucaas gudihiisa oo kooxda game ay leedahay hadduu 2 maalin ka maqnaado inuusan dhihin shuruucdeeda ah صح waxyaabaha oo aniga aan nin jeclaysina ma aqaan صح waxaa ka dareemi kartaa koox kasta oo tago aniga nin jeclaysi wax la dhahay ma kasaayo ciyaartooyga tababarka hadduu sameeyo serious uu sameeyo aniga waa aaminsanahay jibriil waxaan ku ammaanaa waa shakhsi aad u dabeecad wanaagsan ahna ciyaartooy maxay dhaheen ciyaartooyda yarana ixtiraamo jecelna horumar inuu sameeyo dadka markaan raadsan tagay ka mid aan kala hadlo ka mid yahay aan la sheekaystay aad aan uga fadhiistay waana ciyaaryahan waxay aniga isaga aan ku ballanay oon u sheegay oon ahay inaan shaqada ku adadkahay tababarka ku adadkahay horena la iiga sheekay inuusan dadka tababarka gooye ahayn jibriil waa ku ammaanaa raadsanna wuxuu ka mid yahay lafdhabarta qaybta maanta ee joogto dadka ka mid ah gaarsiiyo ka mid yahay waayahay bal waxaad nooga warantaa dhanka wax soo saarka aad baad ugu wanaagsan tahay ciyaartooy badan baa fursad siisaa oo jaanisyo ay kusoo baxaan ama isku soo bandhigaan taana bal nooga waran walaa horta aan ciyaartooyda da-da yar aad aan u jeclahay ciyaartooy badan oo da-yarna aad ila soo xirtaa ciyaartooygana runtaan u sheegaa marka aniga ciyaartooyga la kulmaayo waxaan u sheegaa haddii aad fiicanta waan ku qaadanaynaa haddaadan fiicnayna ma ku qaadan karin صح waa lagu tijaabinaa tijaabaa gelay mana raacdeeyo ciyaartooyga ayagoo joogaan kooxda ay tababarka la sameeyaan صح raadsan hadda markaa tababarka timaado ugu yaraan 30 qof 40 qof aad joogto absolutely waqtiyaana siiyaa صح cunuga wuxuu ku fiican yahay markuu ku yimaado hamiyo haya waa inaan si toos ula sheekaysta caadi aan ula sheekaysta aan ilmaha yar صح wayna ila soo xiriiraan inta badan whatsappka facebooka taasaan ii saamaxdo mideeda kale aan yaraanteeda waxaan kasoo bilaaba anoo player ah inaan wada kooxaha bida iyo siida صح taasaan ii saamaxday inaan ciyaartooyda yaran aan soo saaro anoo experience fiican u leh صح aqoonteydana aniga markayga horena ciyaartooy oo aad u farsamo badan ahay aad iyo aad farsamadeyda aan uga faa'iideeyo bal waxaad ii sheegtaa waa kay ciyaaryahanka lafdhabar ku ah guulaha horse ee kooxda raadsan ee gaartay xilli ciyaareedkan wallahi tiimka dhan kala barar 11 kooxda dheelayso iyo kuwa fadhiya inkastoo ciyaartooyda qaarkood ay kala yihiin maaragtay hadday noqon lahayd defensiga midfieldka kooxda koox isku xiran waaye waxaa ka dareemi kartaa qoslaya waa fiirsata ciyaareeda dadka inta badan waxay dhahaan raadsan difaac may ku jirtaa amase weeraray dhishaa amase waxay tahay raadsan iyadaa lagu wereeraaba صح marka kooxaana saasay ugu weeraan koox kastana iyadoo waxay imaanaysaa oo raadsan ku weerarsan marka insha allah waxaan rajeynaa raadsan in maaragtay shaqada ay hadda wada inaysan hoos uga dhicin waayahay maxay kaga duwan tahay kooxihii aad soo maamushay walaa waxyaabo badan ay uga duwan tahay صح raadsan maamulka naadiga waa u madax banaanay kooxda صح kooxyo hore waxay uga duwan tahay waxay leeyihiin maamul tiro badan faragelin badan laakiin raadsan ma aha saas raadsan waa koox free ah waxaa ka dareemi kartaa calaamada inta u saaran balanbaalis wax kuma degta meelaha oo wasaqda iyo meelaha maaragtay maxay ahayd waa lagaga sheekaya umadaha balanbaalis aad iyo aad marka calaamadeeda taas waaye raadsan magacana waa ka dareemi kartaa raadsan waa raad qurxoon waaye marka insha allah raadsan waxaan aaminsanahay guddoomiyadan waxaan leeyahay nin aad u fiican waaye inay guddoomiyaasha asaga ku daydaan in maaragtay raadsan heerkan ay joogto asaa u sababe waayo macalinka heshiisoo la galaa macalinkan waxay ku fiican tahay koox haddaa aragtid horumar samaynaysa macalinkeeda iyo maamulkeeda isku iyo ciyaartooyda heshiis waaye koox haddaysan horumar samaynayn aragtid maamulka iyo naadiga heshiis maaha aad iyo aad iyo macalinka kooxdan waxay ku fiican tahay macalinka ciyaartooyda in isaga dhexbaxo afraal iska horumar qaad gaaraysaa kooxdaas horumar ay gaareen iyo macalinka iyo ciyaartooyda in isaga dhexbaxo waayahay hadda xogayeynu waxaa arkayay gaaray magaalada gaalkacyo ee galmudug bal ujeedkii safarkiisu ma wuxuu ahaa in kooxda ciyaartooy uga raadiyo gobolada maadaama ee goobaha ugu muhiimsan ee ciyaartooyda kasoo baxaan gobolada dalka yihiin maya cabdiweli waxa waaye nin aad maaragtay familkiisa meesha degan maadaama oo ciyaartooyda aan fasaxnay oo tababarka ay ka nasanayaan sidaas daraadeed wuxuu aaday familkiisa aad iyo aad waqti lasoo qaato insha allah wuu soo noqonaa waana ciyaaryahan aad ugu fiican kooxda xogeynimadiisa ma ahan
waxaa kasii fiican ciyaartooy aad u fiican waaye dadka oo raadsan aan ugu tuurin ka mid yahay waana nin shaksi oo ka fiican aad u fiican waaye oo isku xira ciyaartooyda iyo maamulka naadiga iyo macalinka. halkay hiigsanaysaa wejiga labaad ee horyaalka Somali Premier League? insha Allah dadka waxay raadinayaan taasaan hiigsanayna insha Allah dadka dhan waxay hiigsanayaan taasaan rajeynaa insha Allah. ugu dambeyntii bal waxaad iga warantaa macallimiintu waxay leeyihiin markasta koox ama macallin si gooni ah ula xafiltamaan ama ay ula tartamaan haddii aanay dhanka resultiga marka laga hadlayo oo macallinku ku dadaalo in macallinkaas kale tirikooradiisa uusan ka taaban ama uu ka jabin. Cabdijoon waa kee macallinka ama kooxda sida gaarka ah oo ula xafiltamo? wallahi ana leeyahay xafiltama sax dad lama xafiltamo aniga dabeecaddeedana waxa aniga markaan rabana celebration aan sameeyaa sax markaan rabana ma sameeyo laakiin horyaalkan dhan waa wada celebrationka waxyaabaha oo ii qorshaysan waaye game kastoo aan badiyano waxaan rajeynayaa insha Allah inaan isbedel sameeyo. kulamada celebrationada kugu quruxda badnaa sameeyay ma xasuustaa? Elman Dekete inta badan waxaan sameeyaa markii aan Dekete la dheelan sameeyaa celebration. aad iyo aad ugu dambeyntii sababta aad u sameeyso dabaaldegyada marka aad Dekete la dheelayso maxay tahay? والله waxaan ii qaasi waaye shakhsi ahaantayda meelo badan taabanayo waaye ma rabo inaan saxaafadda uga hadlo aad iyo aad insha Allah waxaan rajeynaa laakiin waa soo afjari doonaa insha Allah. laakiin dadka kubadda cagta ka hadla ama falanqeeya inta badan waxay sheegaan in si gaara tartamada horyaalada iyo tartamada kaleetaba aad ugu xafiltantaan macalinka aad kooxda markaasi ka soo wada ciyaarteen Yuusuf Cali Nuur. maya Yuusuf Cali saaxiibkii waaye aniga asagana isku falsafad ma nihin. sax Yuusuf macalinimada hadday noqoto iyo hadday noqoto playernimada isku falsafad ma nihin waana saaxiibkay nin maaragtay aad u ixtiraamo ka mid yahay macallimiinta wadanka ugu fiican ku jira waana macallin aad u nasiib badan. aad iyo aad adiga oo Cabdijoon ah oo macalinka kooxda Raadsan hadda ah Yuusuf Cali Nuur oo ah macalinka kooxda Dekada sidoo kale saddexda horyaal xiriirka aad iyo aad saddex horyaal ay hore ugu soo qaaday laakiin shakhsiyadiisa uu ku caanbaxay waa macallin. Cabdijoon iyo Cali yaa wanaagsan? iyo Cali ayaa wanaagsan maadaama uu saddex horyaal qaaday. aad iyo aad waqti badan uu ku soo qaatay Dekada. absolutely waxaa ogaataa Dekada heerka maanta ay joogto saddexda horyaal ay qaaday anaa u sababa. aad iyo aad Dekada hadda marxalad xun ay ku jirtaa macallinkii markaan badbaadiyaa macallin fiican aad buu mahadsan yahay. waxa uu ahaa macallin Cabdiweli Maxamed Maxamuud Cabdijoon macalinka kooxda kubadda cagta Raadsan oo ah kooxda kaalinta labaad ka fadhisa horyaalka Somali Premier League oo wajigiisa koowaad soo ilaado wareysi dhinacyo badan taabanayana Astaan Sports gudaana saaxiibayaal wareysigeena intaas ayaan ku soo gabagabeynaa. nabadgelyo macallimu aad baad mahadsantahay.